ururka qormeeye ee beesha Baha Cali ayaa shir ay ku ballaarinayaan ururkan oo ku ekaa gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku qabsaday shirkoodii ugu horeeyay ee ay ku ballaarinayeen ururkan oo ah mid taaba qaaday magaalada Gabiley si ay u dhaadhiciyaan maamulka ururkan waxa aanu ka qabsoomay hotel rasmi ee magaalada Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa xisaabta aad aragteen oo dhan haya waxa weey ilaa habeenkii u shaqeeyaa laakiin saacad kas ilaa habeenkii waxa wax dhigaa laakiin hal saac oo kamid saacadihiisa ama waqti kasta uu joogo way ku programsan tahay waxa weeyaan markuu shaqada yar dhigaba ee uu ka baxaba wuxuu eegayaa marka mobilka wuxuu leeyahay soo diray maanta talo yaa maanta waxa weeyaan wax ku harsan tahay markaasuu haddana nala soo hadlay uu leeyahay war qoladiina halka joogtaa waxa weeyaan intaas qof ama intaas qof baan soo dirinay halka ka hawlgala Shaciib Xuseen oo runtii isaguna computerka inoo qaabilsanay waa injineerka Telesom oo dhan ciladaha oo dhan haysta shirkadda dhan aad arkaysa ee dibad iyo gudoog ama Soomaaliland gabigeedaba ka shaqeynaysa shay kasta oo cilad ku dhacdo ama arrin kasta oo wax ku yimaado isaga la soo weydiinaya maanta cid uga sarreysa isaga ma jirto waxa weeyaan haddana waad arkaysaa isagoo computerkii dul fadhiya ayuu kolba wixii uu Ismaaciil gudbiyo ayuu soo dhigaatana maalin walba page-kaas intaas huruuda intaas ka cad wali halkaas soo dhigaa macnaheedu wax kala ma aha time-kiisu uu ku darsaday waqtigiisu uu ku darsaday anaga inta yadan kala nasaasan wadanaa Naasir oo waxa weyn shaqo hayaayo 24 saacadood bakhaar buu dhex joogaa oo kolba dad u eegaya Sheekh Mustafa waa saasoo kale anu Khadar saasoo kale aan ahay qodobka labaad aan isku doono inaan iyadana wax ka yar bildaamiyo waa ka hore la idin sheegayo waa reer Gabiley dowrkii ay lahaayeen reer Gabiley ayaa aad loo tuhmayaa oo la laay ururka ku yeelan lahaayeen dibadna maanta waxaynu ugu tala galay malaha waxay yiraahdeen baanu siniri waa tan gudidii waxaasi xaqaa noqotay idinku de shaqa kuma lihidin oo la idin ma baahna dibadna markaa gudiga halkan in matalan oo kale gudi fiican maanta looga magacaabaan doonin laakiin de tabitaankii doorkii aanu tabaynay un baad sii muujiseeno sidii aanu dooninay meesha uma idaan iman maanta waxaanu doonaynaa halkan oo indhaha yaryar inaan u nimaadno oo dabeedna markaa aanu rag ka dhaxulno oo dabeedna markaa Gabiley ay gabiga ka soo baxdo Gabiley imika gabi bay ku jirtaa moogta markaa hadkaad noo fadhiisateen dabeedna waxaanu lahayn markaa gabiga ka soo baxaan markaa weli kaba idaan soo bixin waxaynu leenahay Gabiley gabiga ka soo baxa oo muxuu ahaa had iyo jeer xoolaha iyo waynaga deermii baynu hayno de xoolaha iyo baynu ma garanaysa marka xooluhu qaar xagga hore mara iyo qaar hadhaaya bay kala yeeshaan moogti marka Gabiley waxaynu leenahay Gabiley de hadhaaha noqonina xagga hore soo mara marka intaasan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta qolada qormeeye marka hore aad baan ugu mahadnaqanaa waxay kulay hayaan un baan isleeyahay tolnimada markii hore la soo bilaabayay odayaashu iyagoo aan geed sarawaab baa jirayay hawsha isagoo aan waxba dan ugu jirin ayaa uu hawsha qabanayay ceelka biyaha odayaasha hore waxay ku gaadheen sabarad ayaa biyaha ugu darnaan jiray oo sabarad bay ayay ceelasha kaga soo saareen kullay hawshii un bay hayaan ninka odayga ana waxa la yiri isagoo dantii reerka ku maqan ayaa reerkiisu oodna ma heli jirin biyana ma helayn kuwan uu hawshooda ku jiraan uma soo dhaaminay tabarucaadka iyo isxilqaanku bay kamid ahayd hawshiyo kulun baad horta haysan ta kale horta reer Gabiley baa lagu yiri celceliyo waxa la yiri reer Gabiley waxba ma bixinayaan annagoo lafteedu markaan siiraxansano waxaan leenahay de reer Hargeysa laftoodu waxay tirsanayaan untiinan meeshii bal hala yara kala saaro ha Gabileyna gaar waxeedo si aan de Hargeysa waxa ku jira dibadii wax badan baa ku dhex jira ya hala tartamo ya markaa bal gudidana kulay de watan wala joogaayo waxba loo kala tigmaaye iyadoo imika la joogo ayaynu qolada dhalinyarta ayaynu magacaabi doonaan waxana khayraad badan baa ku jiro imika waxaan leenahay qolada qorbeeyo laftoodu de waxoogaa yaro cabsiyaa ku jirto imika ciideedii ka sarreysaaba reerkii ma jirtee jiif caaqilka mooyaane dadka amroo ka ganacsadahaana u yeedha
ككلنا ويادا نما وحنان كراتينو مكرركو أنت أديدك شوكتان بو إسكو نقضي dad isku tiirsan marka waxa leenahay taasina ku dhaci baa idinka yara maqan de wax kale idin oran maaye oo maanta isku keen horeysay waxaan leeyahay de han ku dayna dadka qeyrkeen reere inaga yar baa jiro oo afar qof oo waxyaabo badan tiigsanaya muxumin imika mar haday 30 arday ay noo dhiganayaan anigu waa duruuf adag baa meesha ka jirta waa run laakiin hadana qof walba xoolaha badan haysta iyo xoolaha yar haystaba qof uuna xoolo la aasi wali ma aragtay qof sidaa waligiiba isaga jirta haduu bixin waayo laakiin qof xoolaha wali la aasi ma jiro qof kastaba isagoo kafanka waxa la kafana loo raadiyo hebel marka qabrigeenana si inoogu fiican oo wax ugu dhigano dadkeena duruufaysan ee waliba foonfoorku qofku uu soo rafaad dhameystay qofka foonfoor soo gaaray waa ilmo yar gaajiyo darxuu ka soo dhargay debal hambari taagaarno hadayna wax kale raacin karayn dadka qaar oo aad u yar yar wallahi waan ka hinaasayo reera aad inooga wada yar yaro sida loo ordayo aad qofku moodayso imika ay ka baxay anigadii bay ka baxeen aniga waxa maxay igu jira anigadii way ka baxeen qofka waxba lama weydiina wax la inuu hebel qaarankii mu soo diray de anigu waxaan leeyahay naftayda iyo nafaha kalaba aakhiradeennana waa inoo dan adduunyadeennana waa inoo dane han u dabacno ilaahayna waxaan ka baryaa intiinaan waxba haysan Allah u dhiibo intaan shaqo haysan shaqada Allah u fududeeyo sadaqad waxba ma xumayso wallahi isma faanay mararka qaar kood ba waxay la soo hadla anigoo markayga horena wax barasho meesha kaga maan tagin guri sidan oo kale uu soo masaxa iyo qof igu dhaa waxna igu dhacay waan ka xishooda inaan ku dhaa waxba ma hayo markaa baan laba ragcadood tukadaan dhahay ilaahu soo astur isagana waxaan ku dhaa dhowr cishayso imaba khashifa rabbi isaga weyn waaxide markaasum bay waxaan meel laga filan iska yimaadaan sadaqaduna waxba ma yareyso waxaan leeyahay raga ilmaadeeraday qaarkood ilmaadeer iyo qaalin weelduha inta way jiraan waxaan leeyahay sadaqada ha loo ordo qofkii doonaya inay taladiisu hagaagto sadaqada xageega u orad oo taquraata ee murugada dadka u diida markaad sidaa wax u bixisaba imaga maantana la hadlayo caruur baa jirta gabilay aan dhowr qof wax ku siino caruurtii baan u tagay lacag buurana waan u siday lacagtii baan u geynay kolkaan dhowr qof baan nahay isla eegnay waxaan nidhi horta bal hala yara eego de sadaqadu waa taa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan han dadaalno tolkayo sidii horiis u dhowtoona ma yihiin laakiin moojide dagaalkii bayna dhimeeyay talo ya dagaalkii kadib mana ilmaba dhalan aan iska dadaalaan leeyahay de anu kulay maanta igu horeysa meel aan uga hadlo stiil haddana waan faraxsana intaasoo qofoo baha cali haddana hor fadhiyo waxban moodaaba gurigayga inaan joogo markaa han dadaalan leeyahay kolley jimcuhuna de waa maalin saacatul ijaaba ku jirto wanaagna waynu isugu nimid alla subxaana watacaala muraadkeena ay ujaadaan allah inoo aqbalo kuwa laga aqbalo allah inaga yeelo waanada iyo gubaabadaasi ururku inoola yimid anu saada waxaan ka dhageystaa gruubka oo kolley waan ka helaa waanooyinkeeda iyo wax sheegeeda xaqiiqay ka hadashaa waa qof waayeelo waayo ariga qurba jooga oo dee soo rafaaday oo meel baasoo lagu dhintay bay joogta siday noo sheegtay marka qof rafaaday oo waddan kala tegay oo dee waayo arag weeyaan inagu laakiin wax jiif oo jaq baynu ku jirnaayo dul islaam aynu nahay oo salaadeena shantii waqti waynu tukanaynayo dee nimcaynu ku jirnaa marka kolley taana waxa weeye inaynu qaadanaan rajeynaya insha allah qolada reer gabile ee la canaananayo de annaga si canaananay intaan lasoo fadhiisan halkaani aadan iyo maxamed sanyari oo isku dhilaynay anna waxaan lahaa reer gabile yaan digada laga sii dhigina bal hala yar kala reebo oo waxoogaa baashu isma wada dul taalle dad wanaagsanna way jiraanoo dee qormeeyo ka mid oo xagga hore ka bixiya laakiin guud ahaan sida u muuqato dad diyaara oo u diyaara oo u firfircoon maaha reer gabile ka qayb qaadashada qaadhaanka ururka qaadhaankaana horumar baa lagu gaadhaya ilaahna subxaanahu watacaala waxau yihi watacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan wanaagga isu kaashada rabbi subxaanahu watacaala uu yidhi ilaahay nebiguna calayhi salatu salaam wuxuu inoo sheegay ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى أدونك مركو أدونك ولكن وقرقاريو إلهي بسجن وقرقاري مركا أرن كان نمضن وضعن إسكحر صارين وحكول شراء قرقار ربي سبحانه وتعالى قرقار ربي بكهلنا يجنا إلهي سبحانه وتعالى وقرقاريا دد بي أكعين دد بي دون لسوا صاران دد أقوياهن دون لسوا صارو
hadhow talana horumar kale lagu sii socdaayo in deegaanadii la gaadho oo madaaris quraan la dhiso oo waxa weeyaan iskuuladii la hormariyo oo macallimiin tabarucaada la sameeyo macnaha himilo weyn baa iyaa jirta marka $5 iyo $5,000 ta kale ururku wuxuu yidhi $5,010 taana ha laga dabciyo waxa la yidhahdaa ilaa iyo 1,000 shilin ha laga yidhahdo laana 1,000 shilin ba karaan ha la yidhahdo haddii laakiin $5 la yidhahdo $10 dadkii way ka sasayaadeen dad baan karayn ba $5 markaa ninka muruqmaalkii mar lama ku 70,000 soo qaato 5,000 uu diri karayaa bisha markay dhamaato maalinta koowaad ee bisha 5,000 daw iska diri karaya markaa 5,000 intaasoo muruqmaal naga soo gashay waxa ka badan $5 in ku suganay dad bakhayrino kale oo waxayade ana dad waxayo bixineen ba jira iyagoo mushaar qaata fiican shaqo fiican haysta ayaa laga leey oo anaga waa nala soo cawdaa anaga dib u hadalnaba gibireedaasi joogan qaar shaqaysto oo muruqmaal oo mushaar soo galo meel u shaqo taga ayaa la lacagtii bixin waayeen oo aan la hadalnaa warba iska soo bixiyo khayr laadan siiya waa $5 iyo $10 inta karaankaaga marka waxa weeye arintaan waan ku dhaleelanahay dib baan isugu noqon doonaa reer Gabiley hadaan nahay dhaskana waan isku tubi doonaa ururkana waxaan leenahay insha Allah bal wixii ima ka dambeeya wanaag baad naga arki doontaan insha Allah ta'ala jazaakumullahu xubnaha qormeeye iyo xubnaha reer Gabiley iyo inanteena anaga islaam nooma ahay inanteena qurbo jooga intaba aad baan ugu faraxsanahay inay ka soo qayb galaan nuxurku baan u dhawaanaya maadaama la eedaamay Gabiley dhaliisha way leedahay oo imika waa runtii waan isku haysanaa aniga Maxamed Sayre iyo Cabdiraxmaan anagu kulli qoladii hore aan nahay waxaan wax dhaqaajiyaana caasimadii waa caasimadun kulli Hargeysa waa caasimadeeni ururada kale gobolka ka jira xaggaas baa laga soo dhaqaajiyay waxa wax soo dhaqaajiyna dhalinyartaasay ahayd qofku weyna caajis iyo waxba kulli leeyahay halkan kulli in gooni dhalinyar looga sameeyo oo dhalinyartaasi wixii ay qaban kari waayaan anagu la qabano diyaar baan u nahay dhalinyaradaasi waa kuwii hore u jiray oo kulli inta kale idinka ku dariyay Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo maanta Ilaahay hooyada u naxariistay oo geeriyay iyo waa islaantii dhimatay Allah u naxariisto iyo Xuseen Aadan iyo labada horta waan ka dhinaca dhiska iyo Maxamed Faarax oo xagga dhiska halka Cabdiraxmaan ka yiri 5,000 anu ma leeyahay maalin kasta 70 bay soo qaataan qolada dhisku isma gaarsiisa ama kuule ha ahaadaan ama dhisa ha ahaadaan maalintu doonaha ka jaree kulli in kasta wax la isla garan doono haddana qaadka say u qaylaan baan aragnay mishinjaada hadduu maalin walba u bixiyaa hadduu mishintii jaadka hadduu tolkiisiiyo Allah u naxariistay Maxamuud Calaa kulku qaalaanka bilaabayay wuxuu yidhi nin kasta oo qaad cuna waa qaalaanku uu qaadi karaa marka anu waxaan leeyahay nin kasta oo uu bixin karaa nin waliba waxaad u diyaar garowdo ee diyaar u tahayna sidooday u baxayaan xagga kale Gabiley haddii isku tashato hagaagto waxyaabo badan ay ku dhaami kartaa jira cidiba ciday xagga miyiga ka xigto horta miyi baan ku noolahay oo qaadaankeenan caadiga ee magtu miyigu ka baxaa haddii miyigu waxba waayaan waxba ma bixin karo haddana qaadhanada yaryar ee xilqaanka miyigu ma bixiyo hadduu qofku miyi ku dambeeyana ma bixiyo wax kastoo jira laakiin qaadhaankeena magta iyaga ugu horeeya imika matalan Hargeysa saylad male inagu laakiin sayladna waan leenahay waan la hadalay qolada saylada ee Awdaar Cabdilaahi ma joogan malanaya imika waan la hadalay haddii waxaan isla garanaa ilaa xoolaha ama adunba soo iibiyay ama waxay nagala joogay imika Hayba Axmed Gudaal iyo Cabdi Cilmiba way joogan haddii neefka wax yar la saaro maalin kaliya neef loo soo iibiyaa intaasoo milyan baa la siisanaya ama intaasoo milyan haddii wax yar laga jaro wax qiimo ma laha haddaba si kastoo in waxayna u kororsanayno aan samayno xubnaha guddida Gabiley halkan looga magacaabay lambar 1 waa Xuseen Maxamuud Jaamac hadduu joogaa soo istaago Xuseen Aadan Dheeg soo istaag Mustafa Cabdilqaadir Cabdiraxmaan Cismaan Maxamuud
يوسف حسن شامع محمد فارح عينان آدم أسكر ظاهر عبد الله مدر هيبة أحمد قدال محمد أو ظاهر أو دعيه أنت أسكر جوكتان مالانية ويدين كل شانس في عينه هجانك وأي شيء كسته هجان كمان مارمو صدق دقف وحوي أنا تسليدهين ويدين كل شانس في عين هولها أنا ده ويدين حسوسين تيا وحول بيدين كفلين فدقين وجوه الرئيان تاد مرة صوت معدان صدق دعون قدومية كحجين يحق عيه صدق دعون دورته إن شاء الله تعالى سايدك أنت إيدكم بلدك سوقيا تتنسوا قد بيون صدق عقف بقى مركا نوعه هجان هذا نهاية قد دي هذا كبدين إنسان ده إيدك إيدين جرتا تاسو تيدك إيدين تعالى مركا مرؤون ندير كلانتان وأنت صوت معدان وحويان ديتنا الله دورته هجان كي إيدين متري لها تاسو ما ندخل تلنا ساسو ما نقبل قوتنا أنت تاسو ما لنا هاي runtii waxa weeyaan wixii de kulli wax weyn ma aha waxa weeyaan cid idinku yar chance fiican idinku yar mar waxa weeyaan una diran de hawlaha ee isleedihiin hawlaha way idin yar hormood noqon karaya uun baad iska dooran doontaan hadii la yiraahdo insha Allah taala marka inta umar walaalid kula talinna ilaahay subhanahu wa taala de haynaga dhigo ummadii dhinac wada jeestata ee waxa weeyaan danaheeda caamka ka wada shaqeysata taa bayna fi aakhiraba ku liibaanayna سعاد الحسين وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقبرينا إن أرمها قربها يجوك درنتي وقف آدي حبين آدم مهمة وحوي إلهي سبحانه وتعالى أو صخرة قربها يجوكان إيه حولها يجوكان درنتي وحوي آد كوادق إن إلهي الدين تودا كسر يجي يوبد كودبا أي نقول عيننا شيء وقع لسن ما أنت أيوب هي والدين تودا سوني إلهي الدين تودا كسره يجي يوبد كودبا وبد كودنا الله كده يكوي جرنسية وارد كودا حقودا